inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. haddaan guriga soo istaagay mise waxaan arkay khabar aad u naxdin badan oo degdeg ah oo la xaqiijinayo geerida caalimkii weynaa, dhimashada caalimkii weynaa, dilidda caalimkii weynaa, qaraxa ama qarxinta caalimkii weynaa sheekh cabdinaasir xaaji axmed, ilaahay tabaaraka wa taala ha u naxariisto. waxaa lagu dilay Kismaayo, gaariga ayaa loogu xiray bambo sida la sheegay, ilaa ay haddeertan idaacadaha kala duwan ay xaqiijinayaan. run ahaantii ma aanan filayn sheekha inuu sidaa ku baxaayo, ama ay beegsanayaan dad ama culimada Soomaaliyeed in sidaa xaaladooda ay noqonayso qaar ka mid ah sida loo beegsanayo. wallahi waan wax naxdin leh, laga argagaxo. ilaa ay haddeertan waan qaadan la'ahay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa tabaaraka wa tacaala aamin ii dhahdaan sheekh inuu jannatul firdaws alaclaa inuu geeyo. sheekh wuxuu ka mid ahaa culimadii waaweyneed ee Soomaaliya, ugu cilmiga badnaa Soomaaliya ayuu ka mid ahaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto. run ahaantii markaan sidaa u arkay ayaan aamini waayey. idaacadihii waxaan ka arkayaa waaweynaaye Soomaaliya oo dhan, telefishinadii waaweynaaye Soomaaliya inaan ka arkayaa. waa argagaxay. sidaasaan anoo fariistay oo markaasi xataa jaakadaan iska bixin ayaan is iri waajibka iska rid oo walaalaha gaarsii si markaasi loogu duceeyo sheekha. ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto. ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto. sheekhii caalimka ahaa, dad badan oo yaqaanay geeridiisa, in badan oonan garanayn korkaa ka arki jiray, waxay ku noqonaysaa naxdin aad u weyn ayay ku noqonaysaa. markaan khabarka arkoon fiiriyey oo intaasoo idaacada ay xaqiijinayaan ayaan waxaan qalbiga iska iri ilaahu been ka dhig, ilaahu been ka dhig. laakiin nacam, been ma aysan noqon. la, been ma aynan noqon. sheekha sidaasoo ku dhintay. dadkii la socda qaar ka midana way dhaawacmeen, asagana ilaahay subxaana wa tacala sidaasoo ku obsaday. waxaan leenahay indhaha, ina alcayna la tadmac, indhaha way ilmoodaan oo ilmaa ka soo degta. wa ina alqalba la yaxzan, qalbigana wuu murugoodaa firaaqiisa iyo bixidiisa. wallahi waxaan dareemaynaa tiiraanyo, waxaan dareemaynaa ciil, waxaan dareemaynaa murugo. culimada Soomaaliyeed in sidaa loo beegsado, dadkii ugu cilmiga badnaa, waxaa meeshaa ka xasuusanaysaa, ka arkaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa oo ahaa ina allaha laa yantazicu alcilma, hadda u fiirso, min quluubi alcibaad, oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam. ilaahay cilmiga kama siibo quluubta addoommada sida agama siibo. intizaacan yantazichu min quluubi alcibaad, la ama min quluubi annaas, yani quluubtooda si agama siibo ilaahay cilmiga ummadda, la, laakin yantazichu wuxuu aga siibaa biqabdi alculamaa ama bimowti alculamaa. marka culimada sidaa loo dilo ama ay u dhintaan, waxaa tagaaya meesha ka baxaaya cilmiga ayaa baxaaya. calam ayaa ka baxay ummadda Soomaaliyeed. run ahaantii calam ayaa ka baxay. bal sheekha soo fiiri oo soo dhegayso, isku day inaad soo daawatid fiidiyoyadiisa ama muxaadaraadkii ama kutubtii uu akhriyay, bal soo dhegayso, cilmi aad ugu tagaysaa. laa ilaaha ila allah. xadiidkaasi u fiirsa marka waxa uu ka hadlaayo. hal ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmada u oobsanayaa. culimmada sidaa u waaweyn markay baxaan ayaa waxa isku soo haraya ummaddii inteeda kale. markaase waxay ka dhigtaan uu leeyahy rasuulullahi sala allahu alay wasalam, madax aan waxba aqoon oo juhaal ah ayay yeelanayaan ummaddii. markaasaa su-aalay weydiinayaan, kadibna maxaa dhacaaya? way u jawaabayaan. markaasay meeshii ummaddii ku dhumaysaa. waa kuwaasaa culimmadii sidaa u tagaysa. bal waxaa naxdin leh, wax laga argagaxa ah, in sheekha la dhaho qarax ayaa lagu dilay, bal gaarigaa loogu xiray. Kismaayana wuxuu u joogay sheekha, ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u naxariistee, safar dacwo u joogay. bal qof ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa dadka ugu yeeraaya, dadka dacwada ugu yeeraaya, dadka cilmiga bara, ummadda Soomaaliyeed in badan oo ka mid ay ka aflaxday. ilaah baan kugu dhaashay, sababta loo beegsado ama loo dilo maxay tahay? nacam, qadartiisa ahayd, nacam sidaana u qornayd. laakiin cidda dilaysa, wadaadadaasi, culimmadaasi cilmiga ilaahay siiyey, ummadda manfacaadda u leh, ilaah baan kugu dhaashay dadkaa ka warrama. cid sheegata ma lahan ilaa haddeertan. laakiin waa qariib. asaga un ma ahan, culimmada ka horraysay sidaa loo dilay. qaar ayagoo masaajidka ku jira, qaar ayagoo hadda ka soo baxay, qaar ayagoo sujuudsan. laa xawla walaa quwata illa billah. wallahi qalbigaan ka oynayaa. nacam, bal sheekha in yar fadlan ka bax halkan, soo daawo fiidiyoyadiisa. sheekh cabdinaasir xaaji axmed, soo daawo, soo fiiri. cilmi burqanaya u ahaa, cilmi burqanaya. alxamdu lilah inuu maanta dhaxal ka tagay oo badan, in ummad badanna ay u duceynayso. maanta videogaan aad arkaysaanna hadafkiisa u yahay inaan u duceyno sheekha iyo culimmadii lamidka ahaa ee tagtay sidaa xaaladda iyo gardaradaasi lagu dilay, inaan u duceyno, inaan dhahno ilaahu dembigooda dhaaf, ilaahu ajar ka sii intii wanaag ah, khayr ah ay faafiyeen, ilaahu aga dhig cilmigooda mid ummadda ay ku aayi doonto weligiisa socda, ajarkiisana ilaahu u labalaaq oo u 10 jibaar oo u 100 jibaar oo 1000 jibaar. laa xawla walaa quwata illa billah.
kismaayaa lagu dilay. wamaa tadrii nafsun maada tagsibu gada wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut. nafna ma oga waxay beri samaynaysay kasbanayso, nafna sidaas oo kale ma oga arraday ku dhimanayso. ka waran safar ayuu ku jooga meeshuu ku noolaa ma aysan ahayn, laakiin waxaa loo soo waday, loo keenay inuu meesha ku dhigto. meesha ilaahay ugu talagalay, uu qoray in meesha lagu oofsado, ruuxdiisa looga qaado. laa ilaaha ila allah. wallaahi waa naxdin, waa ciil, gacan ka xaqdaranaa dishay, dhagar u maleegtay sida muuqatee. ilaahay tabaaraka wa tacala inta soo dabartay, intii ka dambaysay, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha gadaashiisa cid kale ku sallidin aamiin dhaha. nacam, sheekha gadaashiisa inuunan ilaahay tabaaraka wa tacala dad kale ku sallidin aamiin dhaha. laa xawla walaa quwata illa billah. biayi dambin qutilu, sabab maxaa loo dilayaa? maxay hadleeyeen? cilmigay dadka bareen miyaa loo dilayaa? way hadleen miyaa loo dilayaa? xaqay bayaamiyeen miyaa loo dilayaa? maxaa loo dilayaa? laa xawla walaa quwata illa billah. ilaahu raalli aan ku nahay, geeri waa mid dhammaanna wada sugaysa, ee ilaahu raalli aan ku nahay. laakiin waan xanuunsanaynaa, laakiin waan damqanaynaa, laakiin ciilaan dareemaynaa, laakiin waxaan dareemaynaa su'aalo badan inaan maskaxdeenna dabcan ay soo gucato oo ay ka mid tahay sabab maxaa. wallahi wax kalaan dhaha ma aqaan. haddaan soo galay taleefonka fiiriyaan isiri, maxaa yeelay maanta o dhan aan mashquulsanaa. subaxiisaan u baxay taqriiban, hadda naftirkeeda waa xilli duhura ah ama bacd duhuray noo tahay, iska dheh. laa ilaaha ila allah. ilaahu u naxariiso, ilaahu u naxariiso. ilaahu kuwaasi sidaa u dilay ee arxandarada u dilay, ilaahu gadaashiisa ummad kale ha ku sallidin. ilaahu gadaashiisa ummad kale ha ku sallidin oo meeshan ugu dhaafi shartooda. laa xawla walaa quwata illa billah. marka waxaan leeyahay sheekha loo duceeyo, ilaahay tabaaraka wa tacala inuu dembigiisa dhaafo, ilaahay tabaaraka wa tacala inuu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam rafiiqiisa ka dhigo, ilaahay tabaaraka wa tacala inuu jannatulfirdows rasuulka calayhi salatu wasalam daris agala dhigo. intaasaan walaalahayga qaaliga aan jeclaysta inaan la wadaago. intaasaan isku ognahay. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. sheekha loo duceeyo.